siiyo xalay rasaastu waxay nagu bilaabatay abaara 3 habeenimo rasaastaas waxay xabaduhu kuwa yaryar kuwa waaweyn bahayeen dhawqa rasaastu waxa laga maqlayay gudaha magaalada Laascaanood dhanba laga maqlayay waxay rasaas la iskugu soo baxay bay ahayd 60 askari ilaa 70 askari bay ahaayeen waxay soo weerareen 3 saldhig ee magaalada ay ku kala yaala 3 koone niman iskala qaybiyo de meel qura galay maysa niman meel qura galay maysa hayna waxay ahaayeen niman iskala qaybiyay oo 3 saldhig iskala qaybiyay dad 3 saldhigna dad baa laga shaday waa la ololiyay askartii adigu wax dhaawac ah oo baahada jira dhimasho lama sheegin inkastoo waxooda qarsanayaan marka wallahi dhibaato badan taasina ma jirto kulli rasaastaas 3 habeenimo bilaabatay waxayna go'day 5 saaka subaxnimo meelaha go'day rasaasta dhowr kuwa waaweyn kuwa yar boo isku weelahay waa tahay saaka magaalada maxaa looga waabaristay saaka magaalada waxa lagu waabaristay horta shalay magaalada waxa la saddex marayay Muusa imaanaya Muusa saaka Muusa imaan shalay waxa yimid magaalada niman wafdiya wafdi waxa weeye niman baalkii sheegeen oo baalkii ismaa bashalay magaalada lagu soo dhaweeyay way yimaadeen waxay deganayeen oo qaamsal casuura iyagoo nimankii maanta joogana de xalana dhacday hawshaas dhacday hawlgalkaas dhacay marka hadii muusan imaan laakiin magaalada saaka waxa lagu soo waabaristay iyadoo rasaastaas ay dhacday xaaladda amniga magaalada saaka uusan fiicnayn waa tahay marka ilaa hadda inta ogaalka ay cid loo qabtay inay ka dambeysay weerarkaasi ma jira oo ciidanka Soomaaliland ee magaalada ku sugan ay qabteen ilaa hadda ciidanka Soomaaliland wax dhaqdhaqaaq uu sameeyay ma jirto waxa uu garo oo wax ku soo qabtay ma jirto waayo sababta dadkii waxaan geystay badii xalay isla markiiba kaga bixin magaalada hadal haynta magaalada marka maxay dadku hadal hayaan dadkaasi maxay ahaayeen xagee ka yimaadeen xagee bay saadeen baa la hadal hayaa wallahi waxa la hadal hayaa dadkaasi inay dad buldaan yihiin waajinin buldaan ka soo jeedinayeen dadka xalay hawsha dhigay inay yihiin nimanka ka soo horjeedo la dagaalamaya oo raali ka ahayn dhalinyaro baalkii is-urusatay iskaashatay ay tahay dhalinyarada meel fog laga soo abaabulana inay tahay aysan hayn iyagu macnaheedu rag macnaheedu maanta ay ugu horeyso waxan waxaan u maleynayaa hawshan inay hawl dhan laga soo shaqeynayeen badan laga soo shaqeynayay ciidamada magaalada hadda ku sugan ma ka badan yihiin kuwa hore wax dhaqdhaqaaq ciidan ma laga dareemayaa maadaama xalay la weeraray saldhigyada ciidanka Soomaaliland gacanta ku hayeen dhaqdhaqaaqa ciidanku saa uma badna baabuurtu waa intoodii weeye adu xoogaa waxaa joogo ku soo biiray hal gaari oo militariya baa ku soo biiray labada xaajada booliska hore joogan baa jooga hadda waa intoodii weeye adu hal gaari baa ku soo biiray wax dhaqdhaqaaq qof badan ay sameeyeen saaka ma jirto magaaladana aad u meesay marmareen waa tahay kacdoonadii dadweynaha ee magaalada ay dadka shacabka ay ka sameynayeen maalmihii ugu dambeeyay oo lagaga soo horjeeday Soomaaliland shalay waxa jiray sida sheegtay warar sheegaya in Musabbix uu imaanayo mana uusan imaan saxageeba iyagu ku dambeeyeen kacdoonada Allah soo salaam mudaharad yar baa dhacay laakiin aad u badneedo bariiso baa dhacay Musabbixna aniga ilama hayno tan imaan kara xitaa hadii imaadana waa inuu banaankaas soo maraya iyo xadda ku soo galaya magaalada la soo dhaxmari karay la tahay waayo sababta maanta dhacday mid ka daran baa dhacay haduu imaan lahaatay midka la siyaabo isaga ilaa hadii aad wax war ka haysid kontaroolada magaalada iyo goobaha kale ama wadooyinka kale ee magaalada Laascaanood laga soo galo dhanka miyiga u baxa Soomaaliland wax baadi goob ma ka sameysay wax baadi goob ay labada kontarool ka sameysay ilaa hadda ma jirto ay qofna ku soo qabatay ugu dambeyntii hadda magaalada jawigeedu waa sidee jawigeedu wallahi cabsi fara badan baa laga dareemayaa sababtoo ah xabad xareed oo lagu soo waabarishada ahayd xilliga soo jeedana xabad la marinay saacad khayraadnimada saaka xabad la bilaabay waxay ahay xabad badan oo laga kayada haydo macnaheedu ay ku baraarugeen dadkii oo ay noqotay macnaheedu anagu saaka waxa aan moodnay inay buldaan soo gashay magaalada asaga markii dambe magaalada waxa la isla dhex maray arrinka hadda ku sheegay